السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن وناكسن دغستيال صاحبيال meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan channelka Wama Media News. qodobada ugu door corona aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Kenya oo damacsan in ciidamadeeda ay kala baxdo gudaha dalka Soomaaliya. sidoo kale waxaad ku maqli doontaan halkee ayay maraysaa wada hadaladii markaa u dhaxeeyay maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya. maxaa ka jira in heshiis markaasi la gaaray isla markaana la soo bandhigi doono oo kulan markaa laga yeelan doono. sidoo kale maxaa ku soo kordhay wararka markaa sheegayay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo in uu markaa waqti kororsi uu sameeyo. Fahad Yaasiin oo qorshe weyn ka damacsan arrintaasi iyo waliba qaar ka tirsan xildhibaanadii shalay markaa hor istaagay inuu furmo kalfadhiga xildhibaanada oo markaa go'aan laga soo saaray iyadoo markaa lala xiriirinayo in ay markaa xiriir la leedahay muddo kororsiga ay markaa xukuumadda haatan jirto ay doonayso. fadlan intaan u gudagelin qodobada aan markaa soo xusnay like saar janalka oo isla markaana sii share garay oo follow saar page-ka Wamo Media Channel. magaceyguna waa Maxamed Ibrahim Krama. haddii aanu ku bilowno dawladda Kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ciidamadeeda ay kala baxayso gudaha dalka Soomaaliya. waxay sidoo kale ay markaa shuruud markaasi ay kaga dhigtay in qaxootiga Soomaalida ay markaa iyagu ku nool xerada qaxootiga Dadaab in ay haddii markaasi ay suurto gasho in qaxootigaasi dib loo soo celiyo ay macquul tahay in dawladda Kenya ay ciidamadeeda ay kala baxayso gudaha dalka Soomaaliya. ciidamada Kenya ayaa waxa ay qayb ka yihiin ciidamada ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan markaa iyagu ku howlgala magaca Amisom. waxaana markaa dawladda Soomaaliya iyo dawladda Kenya ay dhanka siyaasadda ay yihiin kuwa aad u kala fog isla markaana xurguf weyn ay soo dhaxgashay. tani waxay imaanaysaa xilli aad loo hadalhayo khilaafka u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Kenya ka oo markaa ku saabsanaa muranka badda Soomaalidu ay leedahay Kenya muranka gelisay. afeen u hadlay dawladda Kenya ayaa sheegay in marka ugu horeysa ay markaa qorsheynayaan in ay soo celiyaan qaxootida Soomaalida ay ku nool xerooyinka Dadaab isla markaana ay soo tarxiili doonaan cid kasta oo tuhun markaasi ay ka qabaan in ay la shaqeeyaan kooxaha argagixisada. waa sida markaasi uu hadalka u dhigay afeenkaasi oo isagu markaa magaciisa qariyay. dawladda Kenya ayaa waxa iyadu ay markaa howlgallo kala duwan oo markaa lagu baacsanayo al-shabaab ay ka wadaa gudaha dalka Soomaaliya iyadoo dhowr jeerna ay dawladda Soomaaliya ku baaqday in ciidamadeeda ay kala baxdo gudaha dalka Soomaaliya. xurgufta ka dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Kenya ayaa waxa ay markaa noqonaysaa mid mar walba cirka isku sii shareerta. mana muuqdo dawlado markaa dhex galay balse waxaa jira dadaallo ay wadeen dawlado markaa qaaradda Afrika ka tirsan oo iyagu markaa doonayay in labada dal ay isku soo dhoweeyaan. markaan ka gudubno qodobkaasi markaan eegno xaaladda dalka warar hordhaca ayaa waxay ka soo baxayaan wada hadaladii u dhaxeeyay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka ka jira. waxaana markaa inta badan ay kulamadaasi u baaqanayeen sabab la xiriirta in ay fadhiga ay markaa ka maqnaayeen madaxweynayaasha Puntland iyo sidoo kale Jubbaland iyadoo saddexda kale ee madaxweyne iyagu markaa ka arrimiya Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir ay iyagu markaasi xaadir ahaayeen kulamadii uu markaa furay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dadaal xoogan oo ay wadeen madaxweyne Qoorqoor iyo sidoo kale madaxweynaha Hirshabelle ayaa waxaa la sheegayaa in natiijo wanaagsan ay ku soo dhamaadeen isla markaana ay macquul tahay in markaa uu furmo shir rasmi ah oo ay ka soo qaybgeli doonaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani. lama oga xilliga rasmiga ah ee u dhacayo kulankaasi balse wararka ayaa waxa ay xaqiijinayaan in markaa la xaliyay dhowr arrimood oo markaasi khilaaf ah oo u dhaxeeyay
mas-uuliyiinta ugu sarsareeysa dowladda federaalk Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland. markaan ka soo tagno qodobkaasi qodobka ugu xiisaha badan ee aadka loo hadalhayo waxa uu ahaa shalay waxa markaa dhacay shaqaaqo iyadoo markaa lagu hor istaagay kalfadhiga xildhibaanada golaha shacbiga ee Soomaaliya. gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa waxa uu shalay soo saaray liis markaa iyadu ay ku xusneyd qaar kamid ah xildhibaanadii hor istaagay kulankii kalfadhiga xildhibaanada baarlamaanka ee Soomaaliya. waxaana markaa la sheegay ama loo cuskaday qodobo markaa dastuuri ah taa oo ay ka mid tahay inay hor istaageen kalfadhiga xildhibaanada, waxaana xildhibaanada markaa iyagu lagu sameeyey shaqo joojin ku meel gaar ahi. hadalhayn fara badan ayaa arrintaasi ka dhalatay iyadoo wararkana ay markaa sheegayaan in arrintaasi ay la xiriirto dhinaca tuunkii la qabay ee ah in markaa dowladda muddaxeedkoodu uu dhammaaday inay doonayso in ay samayso muddo kororsi. waxaana taa ay ahayd dabin markaasi lagu dhigay dhacday shalay qaar ka tirsan xildhibaanada oo lagu kala mirayey. waxaana markaa dabinka ku soo dhacay qaar ka mid ah xildhibaanada walow aan markaasi iyadu aanan la tibaaxin sida markaa ay ku suurtageli karto in markaa doorasho markaa ama muddo kordhin markaa ay samaysato xukuumadda wakhtigeedu uu dhammaaday. Fahad Yaasiin ayaa mishiinka keliya ee markaa doonaya in arrintan ay suurto gasho. xalay kulamo kala duwan ayaa baarlamaanka iyagu markaa taabacsan dowladda federaalk Soomaaliya ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho, waxaana ay ka arrinsanayeen xilliga rasmiga ah ee markaa la doonayo in cod loo qaado in xukuumadda haatan jirta markaa loo sameeyo muddo kororsi. waxaana wararku inta ay ku darayaan in xitaa markaa macquul ay tahay in doorashada dalka ka dhacaysa dib loogu celiyo doorasho qof iyo cod ah oo markaa iyadu khilaaf weyn uu markaa ka dhashay. lama oga sida xaalka uu noqonayo iyo sidoo kale beesha caalamka iyaduna waxa ay ka digtay inaysan ogolaan doonin tilaabo aanan markaasi sharciga waafaqsanayn aysanna taageeri doonin, walow ay u muuqdaan madaxda Soomaalida ay dowladda federaalk Soomaaliya ka tirsan in aysan dhag jalaq u siinaynin wararka ka soo baxaya beesha caalamka oo iyadu markaa xal u leh khilaafka ka jira gudaha dalka Soomaaliya oo markaa ka dhex jira siyaasiyiinta ugu sarsaraysa oo saameynta ku leh siyaasadda Soomaaliya. Fahad Yaasiin ayaa la sheegayaa in uu markaa damacsan yahay qorshe markaa lagu caburinayo saxaafadda iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyagu xildhibaanada ah ee iyagu mucaaradka ku ah dowladda federaalk ee Soomaaliya. ciidamo markaa hoos taga nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ayaa la sheegay in uu Fahad la shiray, waxaana markaa uu ka dhaadhiciyey in markaa loo soo sheegi doono xilliga uu qabsoomi doono kulanka la doonayo in markaa muddo kororsi markaa loogu sameeyo xukuumadda haatan wakhtigeeda uu dhammaaday ee uu markaa madaxweyne ka yahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waxaana qorshuhu uu yahay cid kasta oo markaa aanan doonaynin muddo kordhintaasi ay tilaabo markaasi aan la shaacin markaasi ay ka qaadaan ciidamadaasi. Mahad Salaad ayaa shalay waxa uu markaa sheegay in uu aad ugu walaacsan yahay qaabka markaa loo adeegsanayo ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee Soomaaliya, gaar ahaan ciidamada nabad sugidda ee Soomaaliya. waxaana uu sheegay in la siyaasadeeyey iyadoo mararka qaarna hadallo aana markaa u wanaagsanayn ciidamada qaranka uu markaa xildhibaanku uu afkiisa markaa ay ka soo baxayeen. Mahad Salaad ayaa sheegay in aan loo baahnayn in la caburiyo xildhibaanada sidoo kale saxaafadda, waxaana uu sheegay qorshe walba oo markaa la doonayo in muddo kororsi lagu sameeyo ay ka soo horjeedaan, islamarkaana tilaabo walbo ay markaa mas-uuliyaddeeda ay xambaarsan doonto dowladda wakhtigeedu dhammaaday. saaxiibadeenna qaaliga ah, fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii aad markaa ku cusub tahay beejkan like saar oo sidoo kale sii shargale oo asxaabtaada la wadaaga. janalka Wama Media News waxaa markaasi inoo balan ah oo aan markaa idinka ballan qaadaynaa in warar xaqiiqda ku saabsan idiin soo gudbinno.
guud ahaan saaxiibada qaaliga ah waxaan halkaasi ku soo afeeraynaa wararkii ugu waaweynaa ee soomaalida laga hadalhayay. magacii waa maxamed ibraahim kraama. tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano allah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.